Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Dhammaantiinba aad baan idiin salaamayaa meel kastood ku sugan tihiin. Salaan ka bacdi waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin oo ladan tihiin oo nabad iyo nolol ku noolaaneysaan. Intaa kadib maanta waxaan inoo wadaa sheeko. Sheekadan waa sheeko ka dhacday wadanka Sacuudiga waxayna ka mid tahay sheekooyinka cabsida badan leh. Qof kastoo sheekooyinka cabsida badan jecel waxaan rajaynayaa inuu soo dhawaan doono. Qof kastoo sheekooyinka cabsida badan aan jeclayna waxaan rajaynayaa inuu durki doono oo halkan halkaagii ma iskaga tag baan leeyahay. Haddaba sheekadu waxay ku dhacday 3 wiil oo dhalinyaro ah waxayna ka dhacday wadanka Sacuudiga. 3 wiil oo dhalinyarada markii ay dugsiga sare soo dhameeyeen waxay go'aansadeen inay waxbarashadooda jaamacadda sii wataan. Haddaba waxbarashadooda jaamacadda waxay go'aansadeen inay ku qaataan jaamacad ku taala deegaanka ay degnaayeen, deegaan aan ahayn oo ka baxsan oo in badan waliba ka durugsan. Haddaba intii aanan sheekada guda gelin oo aanan sheekada sii wadinin waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka dhankiina kasoo qurxisaan. Waxaan rajaynayaa inaad like iyo subscribe iyo comment iyo share intaba aad la dhici doontaan si aan aniguna u arko inaad sheekooyinka noocan oo kale ka heshaan oo aan usoo badiyo. Haddii aan arki waayinadi waxay noqonaysaa idinkama filaayo horta waa mahadsantihiin amar maaha waa codsi. Haddaba sheekada aan wada galo bismillaahi raxmaani raxiim. Sheekadan saan hore idinku sheegay waxay ku dhacday 3 wiil oo dhalinyarada ah. Sheekada waxaa soo tebinaya wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Rayaan. Rayaan wuxuu ka mid yahay 3 dhalinyarada ay sheekadani ku saabsan tahay. Marka sheekada waxaa soo gudbin doona anigoo iska dhigaya inaan Rayaan ahay. Rayaan haddaba wuxuu dhahay waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo ku jira waqtigiisii ugu fiicnaa, waqtigii ugu firfircoonaa. Waqtigaas waxaa kaliya noloshayda ka rabay ama waxaa kaliya xiiseynaya waxay ahayd inaan noloshayda si farxad leh oo nabadgelyo leh oo qurux ah ugu noolaado. Wax kale maan rabin sida dhalinyarada qayrkayga oo kale. Wixii ugu badnaayeen la kulmay waxay ahayd xorriyad la'aan. Xorriyad la'aantaan dareemayay waqtigaas waxay iga imanaysay dhanka hooyaday. Dhanka hooyaday xorriyad darrada iga imanaysay anuu markaas lama yaabanayn buu dhahay. Lama yaabanayn oo waxaan dareemayay inay xaq u leedahay inay aniga xorriyad darro igu rido maadaama walaalkay Maxamed oo iga weyn ay dhibaato fara badan kala kulantay waqtigii aniga cimriga aan jiro waqtigan oo kale ama da'daan jiro waqtigan oo kale markii uu jiray isagu. Wuxuu ahaa qof aad u dhibaato badan. Hooyadayna in ka badan 10 mar ilaa 20 mar uu ku celceliyay saldhigyada booliska. Hooyadayna noqotay qof caan ka noqday saldhigyada booliska si ay walaalkay Maxamed u soo dayso. Haddaba maadaama walaalkay Maxamed iyo hooyadii idila soo hadal qaaday waxaan idinku soo dhaweynayaa inaan idin baro maadaama iyaguna qayb ka yihiin muhiim ay ka yihiin sheekadayda. Aanan yihiin halkay ka bilaabanayso. Walaalkay Maxamed iyo aniga iyo hooyadayba qoyskaygu ka kooban yahay. Waxaan nahay qoys aad u yar. Waxaan nahay qoys noloshooda iyo dhaqaalahooda aad u hooseeyo. Waxaan iska oran karaa anagu waxaan iska ahayn dad faqiiriina macnaha. Anagoo noloshaas faqiirkaas kaga jirna haddana waan ku qanacsanayn. Aabahay weligii lamaanu noolaanin. Aabahay markii aan yarayn uu hooyaday ka tagay way isfureen. Kadibna gabar kale iska guursaday nolol kale iyo reer kale uu leeyahay. Caruur kale uuna dhalay kuwaas uu la faraxsan yahay la nool yahay. Anaga nama soo sheegto waxna nama taro shar mooye khayr naguma soo darsado. Hooyadii baa dhabarka noo ridatay, hooyadii baa waxna bartay, hooyadii baa soo korsatay. Markasta waxaan ugu badan inta badan aan dadka qaadi jiray ee aan ka xumaan jiray waxay ahayd markii aan iskuulka tagay aniga hooyadii baa iskuulka igeyn jirtay. Iskuulka igana soo celin jirtay, lug bay igu kaxayn jirtay, lug bayna igaga soo celin jirtay. Markaa waxaa jiray 2 caruur ah oo 2 wiil oo aan dhanka aabahay ka walaalnahay oo iskuulka la dhigan jiray. Marka 2 wiil iskuulka la keenayo aabahay wuxuu lahaa gaari u khaas ah. Gaariga u khaaska ah ayuu gaarigaas ugu khaaska ah ayuu caruurtiisa ku soo qaadi jiray, iskuulka ku keeni jiray, kagana soo dooni jiray marka la soo rawaxayo. Anaga markaa iskuulku in door noo jiray marka la goynayo cadceeduna kurusha iska fahmi kartaa qof soconayo lugihiisa adeegsanayo. Markuuna arko marka aniga iyo hooyadii oo lugeynayna oo cadceedu nagu dhacayso waxba noomu tiri jirin ma soo qaadi jiray uuna dhaafi jiray. Taas baa aniga markaa qalbigayga cuqdad fara badan ku beertay. Kadibna waxaan gaaray heer aan habaari jiray aabahay. Markaan habaaray aabahay markaa hooyadii way aamusin jirtay. Waxayna igu dhihi jirtay habaarin aabaha.
waxaan la yaabi jiray wanaagga hooyaday heerku gaarsiisan yahay. Ninkii dhibaatada u geystay carruurta ku dayacay maanta wax alla wuxuu dee ku taray aanu jirin. Habaarkiisa iyo ducadiisu waxay meeshii u buuxinayso maan fahansanayn. Nolosheedu way iska socotay. Walaalkay Maxamed oo iga weyn wuxuu kusii talax tegay raacista iyo samaynta dhibaatooyinka. Wuxuu kusii talax tegay raacista saaxiibadiisa xunxun. Habeen kasta dhibaato soo geysan jiray, maalin kasta dhibaato, maalin kasta sidii hooyo saldhig u taagnaan jirtay laga soo dayn jiray. Haddana ma waan toobi jirin, mar walba bartaas kasii bilaabi jiray. Waxaan xasuustaa mararka qaarkood marka walaalkay la xidho, aabbahay marka la waco si wiilkiisa u damiinto ama uu saldhig ugu yimaado, inuu odhan jiray anigu ma dhalinkaas, shaqana kuma lihi, xidha, dhibaatadiisa ha igala maqnaaday, ha soo daynina. Markaasay hooyaday tagi jirtay, hooyaa soo dayn jirtay. Haddaba iyadoo sheekadu saas u socoto oo muddo fara badan waqtigu iska soconayo, anaguna aanu sideeda dabiiciga iskaga noolnahay, haba iska haysato nolosheedu, laakiin aan ku qanacsanahay hooyaday booskii aabiyo booskii hooyo noo gashay. Baa waxaa dhacday habeenada ka mid ah, waxaa dhacday walaalkay Maxamed xilli dambe oo habeenka nuskiisa dambe inuu guriga dabca inuu ka baxo. Hooyaa markaa u digto ku tiri ha bixin, xilligan waa xilli dambe, xilligan yacni ma in mar kale lagu xidho saldhig lagu geeyaa doonaysaa, hana dhibin, gurigaaga iska soo fadhi, waxba kaama maqna, iska seexo. Iyo wuxuu yidhi hooyo dee iyar baan saaxiibada la soo sheegsana waan soo noqonayaaye, wax dhibaataa ma geysanaye, fasax. Iyadoona hooyadii raalli ka ahayn buu baxay, uu iska tegay. Markuu naga sii maqnaa 3 saacadood, waqti aan ku qiyaasay 3 saacadood, baa telefoon la iga soo wacay. Marka waxay soo wacaya qof ka mid ah dadka jaarkayga ah baa soo wacaya. Kadib markaan telefoonkii ka qabtay, waxaa la ii sheegay in walaalkay Maxamed iyo 4 saaxiibadii oo kale la xidhay, oo weliba lagu qabtay iyagoo daroogo iibinaya. Markii warkaa la ii soo sheegay, aniga naxdintii markii waan cararay, hooyaan u sheegay warkii. Hooyo markaan u sheego, aniga hooyaba waan israacnay xilligii saldhigii booliska noogu dhawaa baan aadnay saan dee bal warkiisa u raadino. Markaanu saldhigii aadnay, saldhigii istaagnay, nin askariyaan hooyo u imiday. Wuxuu ku yiri eedo anigu wiilkaaga waan garanayaa, si fiican baan garanayaa, laakiin maanta yacni xaaladda lagu qabtay iyo booliiska qabtay iyo saldhigga lagu xidhay midna yacni maaha isku mid maaha. Dadka qabtay waa dadka la dagaalanka daroogada qabtay, isagana saldhig kalaa la geeyey, saldhigayga lama keenin, warna kama hayo. Marka anagoo walaahi iska niyad jabsano, albaab kasta nagu soo xidhmay, cidna caawisana aan haysan, ayaan guriga iskaga soo laabanay. Muddo badan baan walaalkay ka warsugano, meel alla meel aanu ka raadino aanu la'ayn. Markii ay muddo bila kasoo wareegtay dhacdadii walaalkay, ayaa maalin waxaan ogaanay war ah in walaalkay ay xidheen qolada mukhaadaraadka la dagaalanta, aanay saldhigna ku lahayn tuulooyinka noo dhow oo dhan ilaa tuuladeeda aanay saldhig ku lahayn. Saas darteed walaalkay la geeyey caasimadda, laguna xidhay saldhigga weyne caasimadda. Saldhigyada waaweyn caasimadda ku yaala mid kamid ah lagu xidhay, la maxkamadeeyey, laguna xukumay 25 sano oo xadhiga. Maalintaa markii warkana loo keenay, walaahi sadmad bay nagu ahayd. Naxdintii hooyaday dhakhtar bay la gashay. Dhakhtarka iyadoo taalaba waxaa xasuustaa halkii aabbahay uu nooga iman lahaa uu dee nala tacadufi lahaa oo dhibaatada na soo gaadhay iyo hooyo xanuunsanaysa iyo walaalkay oo la xidhay oo weliba la xukumay, halkuu yacni nala dareemi lahaa xanuunka, wuxuu bilaabay inuu hooyaday canaano kala dul dhaco, uu u sheego ku eedeeyo inay hooyaday iyadu waxaan ka mas-uul tahay, inay wiilka yar iyadu tarbiyad xumo ku samaysay, inay iyadu heerka gaarsiisay waxyaabo yacni qofka bini'aadanka aan u dul qaadan karin. Qof dhan oo dhakhtar joogo oo noloshiisaba 50-50 ku jirto, xaaladiisu xun tahayna waxyaabahaas lagu eedeeyo de. Marka arkay anuu aabbahay inuu hooyaday eedeynayo, waxaan bilaabay inaan aabbahay kasoo horjeesto. Wax kastoo qalbigayga ugu haya waan ku tufay. Inuu na dayacay, inuu booskii yacni isaga looga baahnaa isagu ka baxay, wax kastoo walaalkay ku dhacay, waxa aniga igu dhici doona, waxa hooyaday ku dhacay, wax kasta isaguna mas-uul ka yahay, inuu isagu khayral mas-uul yahay. Wax kastoo afkayga kasoo dhacay aabbahay waan ku yidhi maalintaas buu yidhi, waan ku ciil baxay. Kadibna wuxuu yidhi aabbahay wuxuu isku dayay markaa inuu dharbaaxo. Markaa wuxuu yidhi dadkan isbitaal ka shaqaynaya dhammaantood way isku kaayi daaweynayaan, dhakhaatiirta, neerasta kulli. Markay maqleen de wixii anigu aan dhahayay oo dhan, aabbahay dulmigu noo geystay oo dhan, anay ila safteen. Marka aabbahayna way iga celiyeen. Markay iga celiyeen dee wuu iska baxay dhakhtarkii wuu ka baxay, saldhig waa daba socdeen. Dhakhtarkii wuu iskaga baxay. Kadibna aabbahay maalinta waan sii kala fogaanay. Tan kastoo marka horeba aanan isku dhaweyn, waxba aanan isku sheeganay, laakiin haddana waanu sii kala fogaanay maalintaas. waxbayna hadal idinku daalinay. Hooyo bil iyo badh bay dhakhtarkii ku jirtay. Markii dambe way iska soo fiicnaatay, dhakhtarkii waa laga soo saaray, guriga iska timiday. Laakiin
maalintaa wixii laga bilaabo hooyaday go-aan waxay ku gaadhay in aanay guriga aanan ka bixin ilaa intaan waxbarasho tagayo mooyaane. Waxbarashada aan tago guriga kusoo laabto guriga aan joogo. Aniguna dee maadaama hooyaday maanta qofka kaliya tay haysata aan ahay xaaladeedana aan ogahay hooyadayna aan aad u jeclaa warkeeda waa maqlay kama waalin gurigayga iska fadhin jiray asxaabna ma raaci jirin iskuulkaan tagi jiray waan kasoo laaban jiray. Adiga wuxuu yidhi markaan iskuulkii soo dhameeyey dee xilligii aan iskuulkayga soo dhamaystay yacni sanawigii lasoo xiray dee xilligaan jaamacad geli ay gaadhay aan dee in badan aanan guriga ka bixin asxaab iyo waxa aanan raacin. Hooyaday dee aan arkay arrintii inay nagu sii talax tagayso waxaan go-aan ku gaaray inaan hooyo la fadhiisto maadaama loo baahan yahay inaan jaamacadaydi sii wato inaan waraaqa xareysto inaan jaamacadaha iska soo diiwaan geliyo ina dee adigu kule waa iska fahmaysaa qof yacni dhalinyaro hadda iskuulkii soo dhameeyey hawl baa u taala process iyuu marayaa jaamacadu iska diiwaan gelinayaa jaamacado fara badan buu codsi u dirsanayaa adigu hawlahaas oo dhan buu galayaa. Kadibna hooyo markaan la fadhiistay adiga in badan bay igu qaadatay inaan hooyo ku qanciyo ilaa waxay shuruud iga dhigtay inaan waqti i siiso waqtigaa inaan baxo waqtigaana soo laabto sidoo kale asxaabteyda aan raacayo ee macayga ah ee rafiiqayga ah inaan u keeno ay barato. Dabcan markaa waxaa jira buuri laba nin oo aan saaxiib nahay labadaa nin mid muslix baa la dhahaa midna sayd baa la dhahaa waana labada nin ee sheekadeedu saldhigga u ah ee aniga iyo iyaga ay nagu wada dhici doontaa qisadani. Hooyo markii aan u keenay labadan markaa wiil waa labadii maalintii iskuulka saalii qorayay isku marna la qoray isku kursi aan fadhiisanay saaxiib lilaahi yaa nahay buuri nalama kala dhex maro xataa wuxuu ku leeyahay markaan iskuulka joogno aan wada socono waxaana la moodaa dad walaalo ah walaalo mooyaane saaxiib bay weligii cidna kuma fikirayso. Wuxuu yidhi deedna inamadii baan hooyo u keenay hooyadii markaa aragtay ina muslix iyo saciidiyiin way iska faraxday niyadda u degtay labadan haddaad saaxiib la tahay dee waxay tiri waa caadiya horto suuqiina galo hawliina soo dhamaysta laakiin is ilaaliya. Aniga iyo labadeedii saaxiibada ah waxaan markiiba bilownay inaan dee jaamacadaha codsi u dirsano jaamacadaha diiwaan gal yacni aad codsi marka u dirsano nala soo aqbalo codsiyadayadii hawlahaygii wax kastoo dhan looga baahan yahay inaan suuqa galno inaan meelaha iska soo fadhiisano inaan adiga dee sidii dad asxaabo oo dhalinyaro iminka waqtigu cusub yahay alxamdulilah aniguna xoriyad daradii wixii waan ka baxay. hooyadayna inkastoo ay iga warwarsantahay haddana niyaddu oo deganta waxaa isleedahay ninkan niman saaxiibo wanaagsan buu haystaayo saaxiibo xun raaci maayo. Hadii waxba ayaan hadal idinku daalinine markii jaamacadii aanu xareysanay muddadii soo dhamaatay muddadii aqbalaada jaamacadu soo baxayeen la taagan yahay aniga markaa wuxuu yidhi yaanan idin dhaafina horta wuxuu yidhi jaamacadaha wadanka magaalada ku yaala laba jaamacadood weeyaan labada jaamacadood xaafadayda ku yaalaan xaafadayda jaamacad baa ku taalo way noo dhowdahay taasi mid kalena cabaar bay taa ka durugsantahay laakiin iyaduna way noo dhowdahay marka wuxuu yidhi jaamacadda gurigayga ku taala xaafadayada ee noo dhow aadka noogu dhow furuuc maleh yacni maaha branches maleh qaybo maleh waa qaybtaas keliyaata laakiin jaamacadda in yar naga fog waxay leedahay qaybo magaalooyin kale ku yaala oo naga durugsan. Marka wuxuu yidhi aniga nasiib wanaag jaamacaddii noo dhoweyd waa layga aqbalay laakiin labadii saaxiibadayda jaamacaddii noo dhoweyd lagama aqbalin. Sidoo kale jaamacaddii kale naga yar durugsanayd iyadana sidoo kale saddexdeydii waa nalaga aqbalay. Marka wuxuu yidhi waxa anaga cindiga noogu jiro niyadda ku haysanaa go-aankaygu yahay inaan jaamacadaha soo dhigano kadibna aan gurigayga kusoo laabano markastoo jaamacadda tagaynuna aan baxno habeenkiina gurigayga aan seexano. Labada jaamacadoodna suurtagal way noo tahay inaanu sidaas samayno markaas. Kadibna waxaa dhacday markaa asxaabtaydii markay arkeen anigu inaan aqbalaada jaamacadda dhow haysto oo jaamacaddii fogeyd aqbalaadeedii labadoodaba inaan haysto markay arkeen waxay go-aansadeen markaas saaxiibaday inay igu qanciyaan in jaamacadda dhow aan iska kansalo oon jaamacadda shishe iyaga u raaco maadaama intaasoo sano saaxiib soo ahayn intaasoo sano aan wax soo wada dhiganaynay intaasoo sano isku kursi soo ahayn dad isfahansana aan nahay waxay igu qanciyeen inaan iyaga raaco maadaama oonan dee hadda asxaab cusub iyo dad cusub iyo deegaan cusub iyo waxyaabahaas la jaan qaadi karin. Kadibna alxamdulilah wuxuu yidhi aniga way igu qanciyeen markii aan dhan kasta ka eegay kadibna wuxuu yidhi waxaan ka tanaasulay kursigii jaamacaddii dhawaa aan ka helay. Markii aan kursigaa ka tanaasulay muddo 2 cisho kasoo wareegtay mise maalin kasoo wareegtay baaban maqalayba war dhammaanteediiba naga naxiyey waxaana loo sheegay
kooraskii aan dooranay ama takhasuskii jaamacadda aanu ka dooranay waa jaamacaddii saddexdeedana laga aqbalay in laga bedelay kambaskii noo dhowaa oo loo bedelay kambas magaalo kale ku yaala oo cusub oo hadda la dhisay. kadibna markii warkaas naloo sheegay dhammaanteedu calooshaan ka naxnay, waayo midkaayana qorshaha ugumay jirin inuu faamilgooda ka tago oo uu deegaan kale uu kusoo noolaado. midkaayana habeenna kumaanu seexan. waxba yar hadal idinku daalin nimankii halkan meel baan wada fadhiisanay, arrintii baan rogrognay, meel aan wax ka bilownaan garan weynay, qoomamatii ahayd oo dhan ayaa korkayga kusoo dhacday. waxaan ka fikiray oon ka qoomameeyay kursigaygii jaamacaddayda aan kansalay, dibna uma heli karo. kadibna wuxuu yidhi waan iska halkii baan arrintii rogrognay, waxaan samaynaan garan weynay, waayo anu waan ogahay buu yidhi waxa iga dambeeya hooyaday ma ogolaanayso marna inaan deegaan kale wax kusoo barto. wuxuu yidhi adugu dambeyntii markii aan cabaar halkii fadhinay iyaguna ay aniga aada iiga naxsan yihiin. iyaga dhankooda marka laga imaado xataa iyagu diyaar uma ahayn inay faamilgooda ka fogaadaan, laakiin anay aada iiga si naxsan waayo hooyaday keligeed bay noqonaysaayo dee hooyaday keligeed bay kusoo haraysaa meeshii. markaa wuxuu yidhi marka cabaar meeshii aan iska fadhinay, marka Siciid baa wuxuu yidhi waxaa jira nin qaraabadayda ah oo deegaanka jaamacadda ku taalo kamida dadka yacni mas-uulka ka ah deegaankaas ayaa ninkaasaan u qaraabanaya nambarkiisana hayaa, bal ninkaasaan wacayaa de jaamacaddaas inay tahay wax laisku lugooyeyna iyo in kale bal waaye wac. anagu markaa rajo kama lihin buu reeri dad iska niyad jabay baan nahay. taleefonkiibaba lasoo baxay, ninkiibaba wacay salaan kadib. markuu salaamayba wuxuu ku yiri niyow dee jaamacaddaasaan nalaga aqbalay arday ahaan, waxaanu rabnaa dee takhasuskaygina jaamacaddii waa laga soo bedelay kambaskii noo dhowaa, waxaa loo soo bedelay deegaankiina kambaska ku yaala, dee waa kaas bal hawshaa ka waran. ninkii wuxuu yidhi marka alla markuu naga maqlay takhasuskaas iyo jaamacaddaasna loo soo bedelay wuuba farxayba, wuuba qayliyaba maasha allah, oo waaba farxade oo nasiibaabaad leedihiin be oo maxaa dee anaguna waanu yaabnay. markaa speakerku wuu noo shidan yahay, saddexdeydaba codka ninka waa maqlaynaa buu yidhi. deedna waa kaa yidhi waa kaa aduu Sayd baa weydiiyey muxuu kambaskani kaga duwan yahay kambaskan kale, waxaana lagu farxday waa maxay. wuxuu yidhi markaa kambaskan haddii la idii soo bedelay waa kambas hadda cusub, waana kambas fiican, waxbarashadiisuna waa heer sare. haddaad jaamacadda aqbalaad ka hesheen oo welibana kambaska hadda cusub laydinku soo bedelay, farxaddii adduunkii nasiibkii adduunka iyo cawadii adduunkaaba idinku fadhidaba. markaa wuxuu yidhi marka laga yimaado kambaska iyo waxbarashada, wuxuu yidhi kambaskan mar haddaad deegaanka la imaanaysid waxaad u baahantahay buurda inaad guri kiraysatid oo gurigaa degtid oo halkaa deganaatid ilaa intaad jaamacadaada ka dhamaysanayso. laakiin wuxuu yidhi kambaskan wuxuu la dheeraad yahay oo uu kambasyada kale kaga wanaagsan yahay, wuxuu leeyahay meel loogu talagalay ardaydu inay degto. waa hostel ama second dulaab hadbasaad ugu garanaysid, ama meeshii de ardaydu ay degayeen loogu talagalay deegaankii ardayda. wuxuu yidhi qof kasta qol baa la siinayaa, qolkaasuu degayaa, sidoo kale waxaa u dheeraada buu yidhi cuntadoodii oo free ah. markaa wuxuu yidhi xataa lacagta laydin siinayo meel baad degan karta. marka Sacuudiga marka waxaa layidhi marka aad ardayga dugsiga sare soo dhameeyo jaamacadda sidaa looga diiwaan geliyo, dowladdu lacag bay u bilowdaa. lacagtaasoo ardayda inta badan deegaanada kale de ka hesho waxa weeyaan kuwa inta badan scholarshipka waxaas hela. marka deegaanka wax kasoo baranaysid waxaa lagu siinayaa lacag kaa kafaalo qaadaysa deegaanka degantahay, gurigaad ka karaysanaysid, cuntadaada, transportationkaaga ama baabuurkaad raacaysid iyo waxaas. haddii jaamacaddu kaa fogtahay, hadday ku dhowdayna falilahi alxamdu, iyo bugaagtaada iyo wixii de ardaynimo aad u baahatid aad u camal lacag intaas kaa kafaalo qaadaysa baa la siinaya ardayga. bil kasta waana la siinaya, waa shahri. markaa wuxuu yidhi markaa lacagta lagu siiyana meel baa dhiganaysaaba, umaba baahneed bayna lacag bixisid. saas ahaa waan farxanay, niyaddii baa noo yar hagaagtay, de yacni wax yar fiican bay noo noqotay. ninkii baan telefoonka waan dhignay, waa macsalaamaynay, intaydii baa isku soo jeesanay. mushkilad keliya hataa hortaala marka tii jaamacadda iyo kombaska iyo waxa waana laga xaliyey. mushkilad baana hortaala. mushkiladda noo hortaala waxay tahay sidii aan uga dhaadhicin lahayn hooyadii, dadka kale xataa maaha, hooyadii sidii looga dhaadhicin lahaa. wuxuu yidhi waan iska tawakalaynaa, wayna u tagaynaa,
marka anaa la hadlayaan ku uri markaan la hadlo kadib haddii aan ku qancin kari waayo idinkuna waa idin imaani. waan soo baxnay gurigii baan nimidnay hooyaan u tegay hooyaan la fadhiistay arrintii baan u taasaabtay arrintii markuu taasaabtay way iga diiday markii hore markii iga diiday nimankii saaxiibadii gaari ku jiraan u yeedhay adiga dhammaanteed markuu hooya aragtay inay labada saaxiibadana ay wula jiraan oo arrintu ay tahay dee saddexdayadaba ina jaamacadana laga aqbalay oo ay qasab tahay in jaamacadda aadna way iska kay ogolaatay markii dambe. alxamdulilah mushkiladaasna waan xalinay markaan taa xalinay ayaa markaa waxaa dhacday meelahaas waxaa ka dhiman ilaa 4 cisho mise week baa ka dhiman jaamacadda inay casharadu bilowmaan. marka waxaan go-aan ku gaadhnay inaanu maalintii 2 cisho ka harsan tahay casharadu xilligay bilaabayaan inaanu baxno. arrimahaygii baan iska hagaajisanay shanaadidayda waan iska xirxiranay wixii naga baylahaa baan qabsanay wixii aan u baahnay baan box garaysanay waan diyaar garownay ado calaa ayati xaal. marka waxaan go-aansanay inaan ku haysano gaari saaxiibaday mid kamid sayd uu leeyahay gaarigaasaan ku haysanay maalintii baan lagu gaaray maalintii aan bixi lahayn familiyadii baan dhammaanteeduba aanu macsalaameyey ana hooyadii baan soo macsalaameyey waxaanan u ballan qaaday maalmaha fasaxa iyo maalmaha toddobaadku dhammaadee fasaxyada 2 cisho fasaxa inaanu iman doono la fadhi halkan aan habeenkaan la hooyan doono deedna aan iska bixi doono subaxi. wuxuu yidhi anagoo walahi dhammaanteedu iska murugsano qof kastada una jeclayn inuu familigoodii halku ku barbaariyo deegaankiisa uu ka tago oo deegaan cusub wax nagaga horeeya aanan aqoonin laakiin haddana aan ku qasbanahay baan ka baxnay meeshii. wuxuu yidhi waxaan go-aansanay markaa inaanu bacdal duhur ka baxno bacdal maqribna inaan magaalada joogno magaaladaas noogu tilmaamay jaamacadda. marka wuxuu yidhi magaalada jaamacadda ku taalo waan naqaana waanu garanaynaa laakiin jaamacaddu exactly halkay kaga taalo ma naqaano. markaa wuxuu yidhi masaafaday noo jirto qiyaas ahaan waa 300 kilomitir. kadibna wuxuu yidhi gaarigii baanu iska kaxaysanay waanu buuxsanay shidaal tawakal cala allah bismillaah waanu dhaqaajinay. maalintii dhan waan soo soconay markii ay ahayd bacdal maqrib iyo sidii aan ku qiyaasnay 7 habeenimo markii sii galaysay baanu tuuladii soo istaagnay. tuuladii markaa soo istaagnay gaarigii baan saa ugu wareegnay wareeg baanu ku dhammaynay ilaa aanu soo weynay jaamacaddii meel alla meel ay ku taalo. markii aan axbaar wareegaynay dee ayaan bedeniyo waynanu dadka weydiinay madaa taas ay noo dhaantee gidaarka markaa jaamacadda maahay wadada jambigeedaanu iska istaagnay bal waxaan isniin bal inaad ciidaad weydiisanaad heshaan. wiil dhalinyara oo adigu da-aadda ilaa 30 ah ayaa gaari meesha lasoo maro gaari wataana soo agmaray waan istaajinay salaamu calaykum wacalaykum salaam war iska waran fiicanta waan isku sheegnay waxaan ku niniyow waxaan nahay arag noocaasa jaamacadda noocaasaan u soconay waxaan rabnaa inaanu bal dee aad noo tilmaamtid deegaanka baa noogu soo tilmaamay. wallaahi ninka wuxuu nagu yidhi jaamacad deegaankan way ku taala laakiin deegaanka way ka baxsan tahay ilaa iyo 70 kilomitir 80 kilomitir bay deegaanka u jirtaa haddaan is idhaahdo u tilmaamiyo kuma dhammayn karo. marka wuxuu yidhi highwayganba ayaan soo raacaysaan anigaa idin hor soconaya marka anigu jaamacadda uma socdo iyo deegaankeeda uma socdo laakiin barta wadada lagaga dhaco ayaan idin tusaya halkaas idinka degi doontaa kadibna waa idin tilmaami doonaa. anagoo yaaban oo dee 100% hubna ina deegaankana lagu soo tilmaamay jaamacadda oo yaaban baanu saas ku eegnay kadibna waxaan dee anagu deegaanka waan soo tilmaamay waxba kama naqaano meesha ku taale ninkii baanu iska raacnay dhammaantiin intii aanu soconaynay mid kaayana muu hadal markaas ninkii baan daba soconay markaan masaafo ilaa 70 kilomitir ninkii daba soconay ayuu ninkii gaarigii istaajiyey. gaarigii markuu istaajiyey gaarigii kasoo degay anaguna waan kasoo degnay wuxuu nagu yiri nimayow dee mashwaarkeeni iyo safarkeeni wada soconay halkan buu ku egyahay anigu horaan u soconaya laakiin idinku wadadaas waa wada markaa wadada ka degtaa oo dhinacaas loo raacayo wadadaas aad raacaysaan ilaa 10 kilomitir baad soconaysaan jaamacadda kombaskeeda ardayda loogu talagalay ardayda secondary labka halkaasuu ku yaalaa halkaasuu idinka hor imanaya dee ilaahay hedla garan galo wuu naga tegay ninkii anagoo aad u yaabano xaaladdu naga weerarsan tahay wadadii baan raacnay wadadii markaanu raacnay aan ku soconay wadadu waa wado cusub marka waxaan is leenahay malaha waxaa loo dhisay jaamacadda loo dhisay waa meel wada dhira wax alla wax ilaa intaa markaan ilaa 7 kilomitir markaan ku soconay wadadii ee aan ku libidnay
jaamacadda xabad kuma taalo xabad gurigii ka maagdhawa wadada aanu marayna wax guriga iyo waxdada iyo xataa bas iyo meel istaaga iyo wax alla wax ku yaala haba yaraatee ma jiro markan ilaa 7 kiiloomitir wadadii u galnay aanu ku soconay baa ninkii sayd ahaa gaadhiga noo waday ayaa gaadhigii yani breeka qabtay muu wada qaban laakiin uu khafiifiyay socodka gaadhiga ku socday una ugu qayliyay nimayo waxaan arkay ma aragtaa buuri kadibna waxaan ku raagnay waxba ma arkaynay maxaad aragtay wuxuu nagu yiri waxaan arkay gabadh wadada dhinaceeda taagan waxayna igu lahayd yani ii istaaji isii qaad iyo ninkii xagga dambe fadhiyay marka xagga dambe waxa fadhiya muslix ahaa ninkii uu ku jeesjeeso wuxuu ku leeyahay niyo waxana madarage cabsi iyo hurdo iyo waxba ku haysay wadada naga soco adi si jeesjees amal buu la hadlay iyo uuba dhaartay ninkii wallaahi waan arkay iyo gaarigii uu soo kala jeediyay barti uu gabadha ku arkay buu soo istaajiyay laakiin markaas waxba ma joogin gaarigii uu soo kala celiyay markii aanu waxba arki weynay ninkii muslaxa uu ku qoslayba ninkii iyo xaraabo caadi uu ka dhigtayba bas markaa ninkii saydaha markaa kadib hadal juuqna uma dhihin iska aamusay marka anigoo halka hore fadhiya waxaan ka shakiyay hadalka uu sheegayo inuu run yahay kadibna waan yar rumaystay buuri inuu ninku run sheegay ayaan yar rumaystay waa soo baxnay wadadii baan kusii soconay wuxuu markaas ka hadlay anigu waxaan iska weydiinayaa malaha ninkan inuu idin soo waalay malaha ninku been buu idin soo sheegay ninku muu idinka xaraabisan waa ninkiina soo tilmaamay miyuu idinka xaraabsan waa maxay meeshan anoo saas isku weydiinayna ayaa markaa waxaan soconaa ilaa 7 kiiloomitir waan soconayaa 7 kiiloomitir already waan dhaafnay hal mar baan waxaan jaleecay buuri gadaasha muraayada dambe ee gaadhiga ma aragtay xagga dambe ku xidhan baan saa u eegay waxaan arkay gaadhina soo daba socda gaadhiga meel fog baa laga arkay nooma dhawaanaka waxaan arkay kaliya tooshashka ma aragtay leerkiisa bes baan arkaa inuu gaadhi yahayna waan gartay kadib waa iskaga soo jeestay marka aniga shida iguma sii lahayn isma lahayn gaadhigan iyo xataa asxaabta u sheegsama dhihin waa xaslaada weydinku wadada sad marsan buu marayaa anuuna hal minute kasii wada jeesan baan haddana ku celiyay daymadii baan ku celiyay xagga dambe maba joogaba gaadhigii waan yaabay wadada dhan waan soo soconay maanta dhan wadadaas waa wado toos baa loo soconayaa midig iyo bidix meel loo galaa iyo wado midig iyo bidix ka farcantaa haba yaraatee ma jirto intaan soo soconayo dhan markaas shaki baa galay shaki aad weyn baa galay jiriirco weyn baa igu farfadhiisatay cabsi baa qabatay waxaan damcay inaan nimanka ku raahdo saaxiibadaya meesha inaga celiya meeshani meel la geli karo maaha meel aan ku dhiyadsannahayna maaha waxay aan arkin inaan saaxiibada u sheegan damcay soo jeedkan soo jeestana afka kala qaadi siri meeshii waxaan nooga soo baxayba meeshii aan u soconay waxaan baa aragnay dhismihii weynaa ee ardayda loogu talagalay inay seexdaan wixii oo dhanba waxa ku qoran secondulaab waxa ku qoran hostel adu markaan aragnay ina meeshii aan u soconay aan imanay wixii aan sheegi lahaa iyo wixii aan arkay oo dhan waxaas ay loo siiyay waan soo gaarigii baan hor istaagnay waxaan hor istaajinay gaarigii albaabka weyn laga galo sida caadiga albaab weyn halkan waa shimaanka qolkiisa baa ka dhisan saas uu dhisayay markaa wax layra iyo wax nala oo ka shidana ma jiro kadibna halkii baan cabaar istaagnay waxaan sameynaa meeshu waa mugdi haddii indhaha faraha lagaa geliyo waxba arkaysid waxa kaliya ta wehelno oo iftiin noo ah nalka ka horeeya gaariga xagga hore ka shidmaya ayaa bas wehelno ah kadibna ninkii muslixay xagga dambe saarnaa baa wuxuu noo sheegay inuu degayo washmaanka ku garaacayo haye orodeg washmaankii ku garaacay saaid buu garaacay albaabkii dam dhowr jeer ilaa uu soo qoostay albaabkii laga furi waayay wuu iska soo noqday markii albaabkii cidna ka furi waayay xabaar markaan gaariga saa muslix u soo galo daaqadii u xiray ee aanu saa cabaar yar dhex fadhin waxaanu samayno aanu garan la'nahay ayaa halkaas meel aan meeshii ka musu naga xigay ahayn meeshii dhismaha meel aan ahayn oo mugdiyo budowa dabadayadaasa gadaashayadaasa baa waxaa kasoo hadlay qofka humaagiisaan arkaynaa markaas wuxuu yahay nin inuu yahay waan u garanay laakiin weli wuxuu yahay maananu aqoonsan wuu noo yimiday wuu nagu soo dhawaaday nin buuba noqdayba asalaamu calaykum wuuna salaamay markaas markuuna salaamay aan salaantii ka qaadnay wuxuu nagu maxaad ahaydeen iyo waan isku sheegnay waxaan kuri niman dhalinyaro ah oo jaamacaddan soo diiwaangeliyo laga aqbalay baan nahay waxaanan u nimaadnay inaanu caawa halka seexano berina dee wixii noo hadhaya isdiiwaangelinta jaamacadda iyo waxaas aanu gallo kadibna ninkuu nagu qoslay markuu nagu qoslay wuxuu nagu yiri inta jaamacaddan inaad gashaan haddii jaamacaddii leedinka aqbalay inaad hostelka soo degtaan
oo aad deegaan ku noqotaan ardayda meeshan degan ka mid noqotaan waqti dheer waxa idinka xiga process aad u dheer waxa jira lajnad ama board saad u taqaanaan waxa weeyaan dad mas-uulka ah oo yacni urur weeye ururkaas ayaa ardayda magacyadooda loo gudbiyaa kuwaasaa taxliiliya markay taxliiliyaan ardayda iyagaa go-aankooda ay tahay inay yacni ay kusoo yacni soo ogolaadaan inuu ardaygu soo dego meeshan iyo in kale marka waa inaad kuwaas kasoo diiwaangelisaan kuwaas inuu soo ogolaadaan hadalkaa markuu nagu yidhaahday anaguna aan wadnaha farta ku hayno waa markaa ninkii sayidee gaariga noo waday isaga hadalku ninku leeyahay kuma socdo laakiinse wuxuu ka fikirayaa meel dheer hal marunbuu ninkii su-aal weydiiyey wuxuu ku yiri niyow markaa isku kaa sheegay wuxuu nagu waashmaanka meeshaan ahay ninku markii horeba wuxuu nagu yiri niyow halkan dhismahana kamaa dhiman dhismahana ilaa maantaan u garaacayno cidna way naga fur weydeeyey adiguna meeshaa madoobaad ka timidee maxaa tahay waa maxay waashmaanna waad noo sheegaysaa maxaad meeshaa ka doontay maxaadse ku timid gaari ma aragno mooto ma aragno wax ku sidee ma aragnay maxaa meesha kusoo gashay ninkii hal mar buu isbedelay markii saashaas la weydiiyey nidid baa kusoo istaagay uu khalkhalay wejigiisa dareemisay inuu khalkhalay ilaa heeran anagu shakino dib u shakino ninkii dib uga shakino aduu markii dambe uu noo dejiyey hadalkiibuu noo bedelay wuxuu nagu yidhi nimayow dhalinyar baa tihiin yacni waa soo rafaadeen safar dheer baa soo gasheen idima celin karo waana xilli dambe albaabka waa idii furayaa uu nagu yidhi albaabka gala caawa halkan iska seexda cid meeshan soo degto idinka ka horeysaana ma jirto idinka caawa ugu horeeya seexda beritoolana wixii idinka dhiman anaa idinla dhamaynaya waanba faraxnayba anaga muhiimadda iyadu yaa allah waxaan is leenahay meelaad saa dhinaca dhilka u dhigtaan maadaamanu soo daalnay ilaahay oo idi siiya gudihiibaan galay gaarigii baan baarkin garaysanay meesha horta wax nalo oo ka shidan haba yaraatee ma jiro ninkii baan ku niri leerarka noo shid markaa wuxuuna geeyey meesha leerarka laga shido uu garan waayay markaasaan niri meesha leerka dhan laga shiday dee ugu weyn markaa maqsin gaaraa jiro leerarka iyo waxaas laga kantaroolo saacadu ku yaalaan waxyaabahaas lagu yaalaan furihii buu na soo siiyey ninkii washmaanka furihii markuu na soo siiyaan iska furna qolkii waan soo galay markaa muslix baa leerka nagu yar dhaamay muslix baa intuu qabtay bahal weyn oo leerka laga shido ayuu gebigeeda basaa u dalacay bahashii leerkii oo dhan baa wada shidmay markuu leerku shidmayey ee uu sidaa leerku wac u yidhaahday waxaan maqalay qaylo ilaahay mooye bili aadan suurayn karaa uuna jirin bili aadana maaha wax alle wuxuu yahayna garan mayno mar alla markuu leerku shidmay waxaanu hal mar maqlay eycigiisa ayadiyo dhan baasaa u ciiday wah anigu markaa ayadii waxaa kama shakinin codkaan ku shakinay codkaan isweydiinay kadibna ninka muslix maasid baa yidhi leerku markuu shidmayo qayladaasoo kale u bixiyay niyo inaga keeno aynu iska seexanayno marsha gudahayna geliya hadduu meesha ay naga shidanto iftiin yeelata waan baxnay banaankaan u baxnay ayada ciidoodii inta waxaan moodaynay inay dhismaha iyo waxaa ilaalinayaan wuxuu yidhi ninkii waashmaanka ahaa markuu leerkii noo shidmay halkii uu ka geli lahaa meeshiis yaray waashmaanka uu geli lahaa bartii uu ka yimid buu ku noqday meeshii mugdigaayadii uu ka yimiday ayuu ku laabtay aniguna waan iska soo galay gudihii markaan soo galay markaa wuxuu u samaysan yahay buudhow meesha dhismo wuxuu u samaysan yahay dhismo saa usoo weegaaran weeyaan saas uu usoo wareegsan yahay waa 4 gees saa u wareegsan dhexduna way bannaan tahay xagga hoose 20 qol baa ku yaala xagga sarena 20 baa ku yaala 40 qol bay ka kooban tahay 40 qol markaa halkii hoosaan warwareegnay halka hoose saaxiibkay muslix wuxuu ka helay qol suuligiis ku dhex yaalo oo aad u qurux badan ma sha Allah qolkaasaan degayay horta qolaalkii la raadsaday noolay warmay saaxiibaan isla wada degneen meel wada degnay yeena kala tafaraaruqna ina mar iyo una diido waan iskaga tagnay marka aniga sayid xagga hoose wayna cajibay xagga sare aan aadnay xagga sare marka laba qol isku xigaan ka helay labadii qol baan iska tagnay marka xagga sare qolalku kuma yaalaan suuliyaashu kuma dhex yaalaan banaanka meel baad u baxaysa banaanka aadaysa waa qolka soo baxna halkaas oo kale naga soo jeeda halkaasaan tagnaa xaajadeeda ku soo dhamaysanana meelaha biyaha iyo waxa sarkaas ku yaala markaan qolkii saa u galay mid kastaaba qolkiisa galay waxa bilaabay inaan markaa inaan meeshii hagaajisto dharkayga aan meeshii kala gashtay sartii baan hor guftay meeshii baan dhaka dhigtay kadibna waxaan bilaabay waxaan sirru maas ka soo meedhitay kadib wuxuu yiri shukmaan baan soo qaatay ama tuwaal aad soo garanaysid kii baan soo qaatay waan soo baxay waxaan imaaday meeshii suuliyaasha
suuligii markaasaa u galay aan dharkii iska bixiyey tuwaalkii meesha saa u sudhay dharkii saa meelisha wada sudhay ayaan waxaan furay buu tuushka waa baashan shaawarka weeye shaawarkii baan isku shubay biyihii markii saa dhibicdii ugu horreysay igu soo dhacday ayuu layrkii oo dhan dab idhi layrkiiba wuu tegiba nal shidmaya ma jiro mugdi hataa indhaha faraasaan laga gelin waxaa ma arkaysid naxdin anigana jira dhaco waaweyn baasa ma carartaa baan is dhahay haddaan carra xaggan maraya meesha waa madow waxaan arkayaa ma leh xaggii baan iska dhex taagnaa balcabaar mar kaliya hata meesha waxay noqotay meel degan waxbaba ka shanqaraynba waxa iska daaya dhibicda yar biyaha kasoo dhacaysa dhulka kule markaan waxaan baktiyey buuri waxaan xidhay buuri qasabadii tuushka furaysay gacantaan la helay waan xidhay biyaha yare markaa kasoo dhacaya tuushka dhulka ku dhacaya mooyaane shanqarhka lama maqlayo in yar kadib wuxuu yidhi waxaa maqlay jaqaf qof soo socda camal qofkii siduu soo socday suuligii aan ku xigay suuligii aan ku jiray suuligii ku xigay waa albaabka iska furay uu galay markuu saa u galay shanqaar dambe ma maqal markii hore qofka caadi baan u maqlay inuu qof soo socdo qofka waa madow yaa siduu qofkana suuliga ku arkay siduu soo galay waxaas dhan maskaxdeydii ka buuxay laakiin jawaab maayo wuxuu suuligii iska furay qofka uu soo galay wuu xiray bes markaas shanqar ugu dambeysay biyo ma furin ma fadhiisanin ma kaajin markii shanqar ugu dambeysay marka ana waan naxay waxaan isleeyahay bilu saaxiibada yahay kadibna waxaan marka hadii aanu isma lahayn cid kale ma ka filayn meesha laakiin saaxiibkayga ila degnaa ee qolkayga xiga degnaa baan magaciisa ku dhawaaqay yaa sayid baa 3 jeer dhahay markii aan saa 3 jeer sayid u dhahay baa waxa ila hadlay qof aana laga garan codkii saaxiibkay muslix waa saaxiibkaygii halka hoose aanu kaga nimidnay ee qolka hoose degnaa saas markuu igu yiraahday ila hadlay qofkii aan gartay inuu muslix yahay mar dambe codkiisa ma maqal markii aan codkiisa markaas waxa dhacday layrkii oo dhan baa soo dhacay layrkii markuu soo dhacay ee aan isri baaha lugta halka maaragtay suuliyaasha waxa weeyaan suuliyada maaragtay meelaha moolalka ku yaalo kale siday u yihiin dime xagga hoose ugu daloolaan iyo kor iyo waxaas loo xeero la isku tiirtiiriyo camal oo kale u yihiin lagu dhex sameeyo bahalka meesha lagu fadhiisanayo lagu dhex sameeyo waxaas oo kale weeyaan hal mar lugtaas laygu dhagay buuri lugta markii saa laygu dhagay naxdintii aan qaaday buu yiri orad intan shukumaagiisa iskugu duuduubay ayaan xataa dharmaan soo qaadan buuri suuliga orodkayga soo baxay orod saan u soo orday wuxuu ayaan qolkayga kusoo galay qolkayga markaan kusoo galay qayladeydii iyo waxaygii saaxiibkii kusoo baxay maxaa kugu dhacay qolkayga ugu miday sheekadii ka dhacdaan uga sheekeeyay markaas warnayo markaa anagoo saa u sheekeynana waxaan u yimiday saaxiibkaygii halka hoose degnaa oo aad moodid inuu hurda kasoo kacay wuxuu leeyahay niyo maxaad la qaylinaysaan rag waaweyn baa tihiin waadi ka seexan waaya qayladiiniye qaylada maad naga yaraysaan iyo waxaan ku risoodigii imika suuliga igala hadlayay iyo maanaa suuligaa la hadlayay waraanu sidii markii aan barkinta u dheeraystayba maba soo bixinba xataa suulima gelina waan seexday waraan isku tuuray waan u qaadan waayay markuu hadalkaas ugu dhahay waayo in yar ka hor qofkii codkiisa maqlay isagu ahaa kadibna wuxuu yiri nimankii waxay guraan shidaanka iska naaro miyaad salaadii baqa cishaay tukatay iyo ma tukanin waran iyo soo weysayso waxba waswaas iyo waxba ku haye soo weysayso salaada tukabay ayay guraadeen markaas waan baxay waan soo weysaystay marka meesha maaragtay suuliyada maaragtay halka suuliga aan ku jiray mataqaana suuliyada aan ku jiray markii ku meeranayay ayay ka soo horjeedaan meesha biyaha qasabada biyaha iyo waxa tuubada biyaha kadibna waan baxay waan ku soo markaan weysaysadda macay miyaarad baa markaa ku hortaala miyaarad baa meel kasta saa ugu hortaala waad garanaysaa ma malaynaya meesha waji dhaqaya waxaas miyaaradda waxaan arkayaa buu yidhi suuliga iga dambeeya albaabkiisa marna waa la furayaa marna waa la xidhayaa marna waa la furayaa marna waa la xidhayaa markaan dib u eegana waaba sidii markii aan arkayay markuu isa soo xidho markaan eego waxbaba ma joogaanba habsidii baa igu sii korodhay wuxuu yiri degdeg inta usoo weysaystaan soo orday salaadeydii baan tukaday inta shahaado digtaan tukaday alxamdulilah waan yar nafsi weli marka salaada tukaday kadibna wuxuu yiri cabaar markaan fadhiyo sararteedii ku fadhiistay baan sidhiyo bal ma saaxiibka inta iskaga tagtid aad la soo sheekeysatid saaxiibkay marka waa ninka qolka igu xiga degan waan baxay albaabka markaa saa uga baxay
baa waxaan arkay buu yidhi ninkii waashmaanka ahaa oo tirtiraya meesha maaragtay qasabaddan ku weysaysanayay iyo waxaas ayuu tirtiraya iyo hooy salaamo waaban u tago waaban gacan qaado wuxuu yidhi markaan gacantiisa qaadayay ka'anamaa inay biinan camal iga mudmudayaan masaabiir camal ayaad moodaysa adayga iyo qalafsanaanta kadibna waan sii daayay ninka gacantiisiyo maskaxdaydu way ku mashquushay laakiin waxba way iska kay masaxday iyo xaaladii igu dhacday iyo albaabkiisa furay iyo waxaasaan uga sheekayay waniyo waa iska waswaasantay wax ma joogaane amba intaasoo sanaan meesha joogo waan iska yani wax dhibaataa igu kuma qaban kuma arag waxaana ma arkino deedna wuxuu yidhi waxdad baqanaysid kaale aniga ila seexo buu yidhi wuu kaxeeyey qolkiisi waaban iska raacay boosaan uga sheekeysanayo qolkiisi yaraa baan tagnay washmaanka qolkii marka tagnay qolka waxaa yaala joodar yar miya wax yaroo aad dhifada camal isma dhahaysid qol meeshan qof baa seexda kadibna waan iska sheekeysananiyo meeshaasaa keliga ugu nooshahay waxaasaan weydiiyey wuxuuba igu yidhi bayaa kugu yidhi keligeeba oo yaaba kugu yidhi keligii baan ku noolahay yaa kugu yidhi buu igu yidhi aduu sheekadaas anoo waxaasoo dhan aana maskaxdaydu aanan shiilin waxaa noqday sidii qof dabaqsan waan seexday buu yidhi markaan seexday wuxuu yidhi waxaan soo baraarugay saaq dhexe iyadoo ah oo cidna ila joogin oo ninkii aanu joogin oon keligii qolkii dhex jiifo waan yaabay waan soo baxay buu yidhi qolkii baan kasoo baxay banaankaan usoo baxay markaan banaanka u soo baxay dabadda soo istaagay mise gaadhigii aan wada dhimaba yaalaba waa naxay naxdintii adduunka allah war nimankii miyay iga baxsadeen war nimankii maye war maxaa dhacay marka wuxuu yidhi markaan saa usoo istaagay wuxuu yidhi waxaan eegay halkan albaabkaan eegay ninkii waashmaankaan u yeedhay cabsi darteeda waan u yeedhay cidna way ii maqli weyday cabaar wuxuu yidhi marka halkii istaagsanaa ayaan wuxuu yidhi waxaan arkay halka maaragtay balkoonka qaybta sare balkoonkeeda ayaan waxaan ka arkay buri horta intaana balkoonka waxba ka arag wuxuu yidhi waan sii daayay gudihii baan galay nimankii baan raadiyey saaxiibkaygii muslix qolkiisii baan galay ka'anamaa qolka uu degan yahay inuu yahay ku daafad caadiya waxa yaala taayiro yacni shaagagan baabuurta ku socdaan oo duuga yaala waxa yaala qashin isma dhahaysid meeshan buu qof weligii yaalihii soo gala isma dhahaysid marka wuxuu yidhi meesha markan waxa ii yar iftiiminaya buu marka hore mugdi bay ahaydee iftiinka dayaxa maaragtay ayaa ii iftiiminaya waxbaan kala arkayaa buu yidhi markan kadibna waan baxay markaan qolkii arkay ayaan yaabay saaxiibkeema meeshan buu hurday alla naxdin weynaa wuxuu yidhi wax alla waxaan sameeyaan garan waaye markan wuxuu yidhi yaa allah ilaahay i badbaadi wuxuu yidhi waxaan xasuustay meel aan marka ninkii waayey halkaasaan ka qayliyey sayid cid i maqasho waan waaye wuxuu yidhi haddaan telefoon ka wici lahaa oo xaaladooda aan ogaan lahaana telefoonkayga halkaas uu saaran yahay qolkii buu yaala markan cabaar meeshii ka fikiray ee meel fadhiistay ee waxaan sameeyey garan waayey baan wuxuu yidhi intaan xineeye isku buuray oon orod isdhigay oon orod ku koray kaabadii ayaa wuxuu yidhi orod ku sii daayay oon qolkii galay aan saa u furay ka'anamaa qolkan markii soo arkayay iyo isagu asla mid inuu qof dhaqan yahay walay ka tahay markan waxaasoo dhan arkay ee xabsidii igu sii siyaaday baa wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi markaas jaranjar yar oo maaragtay dee marka uu dabdhaco ama si dee ama dhibaato ka dhacdo waxa weeyaan meel laga baxo waa makhraj dawaari waxaa looga baxaa haddii masiibo dhacdo kale hadduu qofku si degdeg inuu meesha uga baxo damco bartaasaa laga baxaa markaas markaa sida moolasha marka loo sameeyo si dabku barku dhaco kaabad laga daadegaa jirta oo kaabadaas ka daadegaa lagu odhay liftiga waa raacinaya waxaas then bartii baan ka daadegay buu orod baan isku shubay salaanka waan saa uga daadegay mar alla markaan dhulka saa u taabtay buu yidhi ayaa wuxuu yidhi waxaan arkaa ay fara badan oo saa iigu urursan halkaasoo kale kusoo urursay aniga iguma urursan laakiin halkaasoo kale ay taagan yihiin way ciiyayaan wuxuu yidhi waxa dhex taagan qof qofka dhex taagan humaagiisu ma arka laakiin waxa alle wuxuu yahay ma garanayo wuxuu yidhi alle ilaahay uu badbaadi wuxuu yidhi intaan dhulka dhagax ka qaatay oo bismillaah dhahay baan wixii ku tuuray wixii way qarsoomeen wuxuu yidhi waan soo orday kor baan fiiriyey wuxuu yidhi waxaan arkay qof sidaasoo kale intuu gacanta usoo saartay maaragtay biraha xadiidka ee balkoonka ku yaala saa intuu soo saartay gacanta saaradanka ugu haya saa iisoo eegaya naxdinta aan qaaday wuxuu yidhi markaan soo orodkii aan soo orday waxaan imaaday albaabkii maaragtay markaan meesha kasoo booday waxaan arkay
waxaana kusoo istaagay buu yiri albaabka maaragtay weyn ee laga baxo kaanamaa albaabka markaan soo istaagay waxaan arkay albaabkii aanu maanta kasoo galnay caawa aanu kasoo galnay oo xiran quful weyn baa saaran albaabkii waashmaanka xadiid weyn baa ku jabsan dhir baaba ka baxdayba meesha maaragtay albaabkii aan kasoo galaynay dhir baaba ka baxdayba kaanamaa weligeed in lasoo gelinin markaasay cabsidii adduunkay qabatay wuxuu yiri intaan sidaa isku biimeeyey oon albaabkiisa u fantay ayaan saa ugu soo booday markaa wuxuu waxaan ku soo booday wadadii aan wadadii baan cagta soo saaray wadadii aan kasoo galay meesha iyo dhismaha iyo waxaba ayaan cagta soo saaray intaan labadii kabood gacanta ku qaatay ayaa waxaa wuxuu ilaahay awoodiisa iyo orada ayaan isa sii daayay buuri waan orday meeshu maxay isku jirtaa waxaan rabaa inaan highwayga gaadho highwayga iyo dhismuhuna maxay isku jiraan 10 kilomitir in ka badan wuxuu yiri markaan soo orday malaha 4 kilomitir ilaa 3 kilomitir balka ordayay bartii markii ma garanaysaa aanu saaxiibkay markuu nagu dhahay gabar baan arkay bartii markaan marayo ayaa wuxuu yiri yar nastay bal waxaan sii naso waan yar fadhiistay hortayda saasaa u eegay waxaaban arkay naagtii uu nagu lahaa walaalkay waan arkay saaxiibkay nagu dhahay waan arkay iyadoo dariiqa taagan oo wadada saa u gudbaysa wadada saa u dhaafaysa inta dhinacaas kale ka timid midigta badaxda u dhaafaysa naxdintii marka ay soo degtay wuxuu yiri ninka iga daalnaa 2 jibaar 5 jibaar 10 jibaar orodkan ordayay ilaahis awood waxa lagu ilaahay isiiyay ma kala reeban dabayl casba soo soomay orodkan ka soo qaaday meeshii baan ku yimid highwaygi markaan imid aan moodid in xabaal iga soo saaray anigoo boorka igu yaalay wax igu yaabis baan highwaygi saa isku soo tuuray markaas isku wuxuu gawaadhi baan marsaa highwaygi marka gawaadhidii baan isku hortuuray qof istaagan waaye qof kasta way ka baqayaan meesha saan u eegay noocaan u eegay qof la eeg karo weeyba wuxuu yiri dadna markaan dhowr gaari dhaafeen ay istaagi waayeen waan haraadanahay wili ayaa markii oday weyn oo adiga ilaa meelaha kontameeyada 60 meeyada ah mise kontameeyada meelaha 5 meelaha jir ah oo adiga hadda cirowday ayay istaagay odaygii baa soo degay gaarigii dhinaca dhigtay gaarigii baa iga soo degay maxaa kugu dhacay deer maxaa meesha cidlada ku dhigay miyaan hadli karayaa dibbiyu siiyay dhinaca biyo fadhiisiyay gaarigii baa soo saaray markii aan nafisay wax kala gartay biyihii ugu degeen haraadkii iga baayla sheekadii markaa uga sheekay marka sheekadii uga sheekay wuxuu odaygii guri marayan baa tahay naxdin haddana waa naxdin kale ay ku dhacay haa baan ku dhahay sidaan magacayga ku ogaatay wuxuu yiri 5 cisho ka hor ayaa baafintaada la soo dhigay lagu soo baabiyay marka ninkani rayaan ah wax ka badan 5 cisho meesha jooga wuxuu yiri deedna ninkii saaxiibka ninka soo baabiyay waa ninkii saaxiibka sayid ayaa ku soo baabiyay kadibna askarta ku baafinaysa saas tartiib bandaanu newskii meelahaas aan ka arkay laakiin adeer kuma garanaynin haddana maadaama aan ku helay saldhigan ku geynaya wiilka xiisa saldhiga booliisku geeyay saldhigii dadka askarta way qaadeen dhakhtar bay geeyeen way soo barbaareen dhakhtarkii markii ay geeyeen ba saaxiibkii loo yeeray saaxiibkiisii baa la hadlay wuxuu yimid dhakhtarkii markuu yimid oo arkay caafimaad qaba alxamdulillah saaxiibna halkee ka baxday waxaan ku wari saaxiib anigu waxa la wax dhacay garanaayo maadaama ay 5 cisho ka badan ka soo wareegtay aniga maqnaashiyahaygi wax alla wixii dhacay oo dhan iga dabagay wuxuu yiri saaxiib markii ay guriga galay markii ay meesha galay ay saaxiibkii aynu kala tagnay adiguna salaad tukanaysan ayaa horta anaga adiga isku keenay wuxuu yiri markii aan cabaar guriga ku jiray yaan in yar seexaysay baan wuxuu waxaan maqlay guriga qaylo aad qof ooyayo qaylinaya camal oo aad u qaylinaya arkay ayaa maqlay waan soo baxay hoos baan soo furay naka qaylada xaq hoos ay ka imaanaysay balkoonkaan soo istaagay waan soo eegay waxaan arkay saaxiibkeen muslix oo gidaarka madaxa isku dhacaya markaan arkay orod kan soo orday isagii baan u yimiday waxaan isirida ka celin ninka dhoodhig baxay dooreeri dhig far badan baa ka yimiday waan qabtay kadibna wuxuu yiri waan kugu soo carray adaan ku soo raadiyay waan ku waayay kadibna isagii baan qaaday sirban nuna dhimantay dhakhtar la orod isagii baan la soo carray dhakhtarkii baan geeyay marka dhakhtarkiisa ku soo hubsaday in xaaladiisa inaayad mushadada la geliyay waxa la geliyay يعني emergency ga la geliyay emergency markii saan ugu soo hubsadan adiga ku soo doonay si aan meesha kaaga soo saaro markii aan imid meeshina كأنما ماشي مركز ساكن كوسو استاجي إن أنا ولي iyo aniga qof bini'aadana uma soo gelin
oo kale camal bay meesha noqotay waxaan arkay albaabkeedii yar koor kasoo galaynay in gaari kasoo gelinay oo dad ka baxday waxaan arkay albaabkii weynaa sida ku taagan yihiin waxaan arkay qolkii waashmaanka oo xidhan xabsidii iyo qabatay buu markii gaarigii inta soo kala jeediyay baan wadada cagta soo saaray waana soo baxsaday isla markiiba aabbaha baan wacay aabbaha baan u sheegay aabahana wuxuu igu yiri shaqo kuma lihi baan igu yiri magu aabbaha shaqo kuma lihi baan saldhigga booliska aaday saldhigga booliska kaasoo baafiyay oon arrintaada usoo sheegay 3 cisho dhan ayaa dhismaha lagaa soo raadinayay buuri askarta dhan meel kasta way soo baareen way soo waayey kadibna wuxuu yiri markaasta markii lagu soo waayay anagu waa iska soo noqonay dadna baafintaada saasay dadka ku soo gaadhay iyo wuxuu yiri cabsidii adduunka qabatay anuna waxaan u sheegay deena ninka washmaanka qolkiisa aan soo kaxeeyay qolkiisa saxiyay halkii aan anigu ma jiifay marka wuxuu yiri waxaan ogaaday inaan muddo adiga 5 cisho ka badan inaan jiifay qolka washmaanka allahumma najina a'udhu billahi minash shaytaani rajiim aniguna waxaan moodayay inaan jiifay oo kaliya isla saacado yaro kooban ma jiifay laakiin waxa ku cadeynaysa inuu in badan jiifay ma taqaana habeenkii iimaanayay dhalinyaradu meesha mugdi bay ahayd laakiin markii uu habeenkii soo baraarugay isagoo banaanka u soo baxay cadday ahayd oo waxba wuxuu ku kala arkay iftiinka dayfu wax ku kala arkay laakiin hadday sidii mugdi ahayd waxba ma arkeen xataa qofka soo eegay ma arkeen aydan ma arkeen waxaan dhan ma arkeen xataa ismu badbaadi kareen halkaas ku dhimanayaan sidii marka wuxuu yiri marka waxa la yiri waxa loo tagay qoladii jaamacadda iyo kombaska waxa masuulka ka ahayd iyaguna waxay dhaheen adiga berigaas horaan dhisay kombaskaas cidina ma gelin markii la ogaaday marka la dhisay qabri laga dhisay markii ogaaday in qabri ka dhisayna waa la iska xirayo cidna shaqo kuma darsanayno meel dee laga guureeyay juuleena qotay cidna afaareeyay ma gelin jirin waxba kuma dhigan jirin ma dhigin jirin marka waxaan arkay naado jiniyo shadaamiyo xabas ay ashtaarjina haddaba wuxuu yiri markii adiga maalmo fara badan aabbaha iyo waxa markii ku sheekeynay odaygan uu iman jiray odayga marka waxa la dhihi jiray Abu Abdallah la dhihi jiray odaygan dariiqa ka soo qaaday inay saldhigga keenay Abu Abdallah la dhihi jiray Abu Abdallah markuu sheekada ka sheekeynay waxa soo dhageysanayay kadibna wuxuu sheekada ka dhex fahmay inuu aabihi iyo wiilkan de calaaqad fiican aanay ka dhaxaynin kadibna wuxuu yiri position bi aabahay buu galay madaxu ii salaaxi jiray inay yaro de aabihi xataa alaabta geliyay waxaan dareemay aabanimo dareemay marka odaygaas isbaranay xataa maalintii dambe markii xaaladdu kala degtay walaalkay wiilkii markaa muslix ahaa ayaan ku warkiisa iga dibay wuxuu yiri ninkii muslix sidoo gidaarka madaxa isku la dhacay dhiigga maskaxda kaga furmay xaaladiisu khatar bay noqotay ICU ku jira emergency gaas ku jira xaaladiisuna walaay duco mooyo wax kale inaan u qaban karin malaynay adigu isaguna 6 bilood buu dhakhtarka ku jiray annaguna wuxuu yiri ninkii odayga Abu Abdallah ayaa maalin macsuumay gurigiisa nagu casuumay odaygaas ilaahay khayr ha siiyo wax caruura mudan isagu kadibna wiilash yareed inankii Sayd iyo yarayaan wuxuu ka dhigtay namadiisa oo kale amal deedan ku lacag u nasiiyay marka maanta lacag u nasiiyay lacagtii wuxuu nagu yiri hadi waxaan iibin marka iibin jiray wuxuu ku ganacsan jiray geel uu ku ganacsan jiray geelaas wuxuu ku ganacsan lacagteeda ka soo gashay waxaas ayuu isku celcelin jiray ganacsigiisa waxaas ku saabsanaa marka wuxuu lacag yar u nasiiyay qof kasta $1 lacag Suudiyaan ku nasiiyay anu gaarigan ibsaday buu gaarigaas ka shaqaysan jiray dib dambana laygama maqal jaamacadii waxaasan galaya markii dambana aniga saaxiibkay waxaan bilownay in aan odayga Abu Abdallah la shaqaysano oo ganacsigiisa la galo ganacsigaas awrta iyo waxa laga ganacsanay meela aan isku dhex galay halkii baan anaguna hawsheedii ka wadanay mar dambana nagalama maqal jaamacadii iyo deegaanka iyo waxaas baan tagaynaa ninkii saaxiibkay muslixaana muddo 6 bilood dhakhtar ku jiray xaaladiisuna si adiga yar tartiib iskaga soo rawaanaysa markii dambe iska caafimaaday sheekadiina halkaas ku dhamaatay aad badnaansantiin dadagaaysiiseen ilaahay waxaan ka barayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban waxaan rajaynayaa idinkuna inaad sidaas idinkuna ii soo rajayn doontiin waxaan rajaynayaa sidoo kale inaad muuqaalka iga soo qurxin